daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday dadka marka hore isu barta qaab walaaltinimo inay noqdaan 80% kuwa isguursada mustaqbalka oo nolol dhaba wada qaata. haddaba daraasadani qodobada ay arrintan u soo qaadatay oo ah kuwa macquul ah inta aanan ku sheegin adigaagani daawanaya waxa aad ogsoonataa qofka maanta walaaltinimadooda ka dhaxaysa 80% inuu noqon karo qofkaagii mustaqbalka. haddaba qofka ay walaaltinimadooda ka dhaxayso ee hadda niyadaada ku soo dhacay muuqaalkan u sheer garay si uu arrintaasi u sii ogaado. haddaba qodobada daraasadani soo qaadatay waxa ay ku sheegtay oo ugu horeeya qodobka ah waxa ay dhaheen laba qof oo kasta oo walaaltinimo dhexdooda ka dhacda waxa ay yihiin marka horeba laba qof oo si aad isu fahmaa oo dabeecad ahaan isla jaan qaadi kara qalbiyanna isfahmi kara oo dadka kale isaga dhow. taasi ayaa keenta laba qof oo kasta marka ugu horeysa inay isku bartaan qaabka walaaltinimo maadaama uu buuxo ama ayna suurtagal ahayn inay isu bartaan qaab xiriir dhaba. qodobka labaad ee daraasadani soo qaatay waxa uu yahay waxa ay dhaheen laba qof oo kasta oo walaaltinimo isku bartaa marka horeba waa laba qof oo si aada isugu faraxsan oo midba midka kale uu agtiisa ku dareemo farxad xasilooni iyo deganaansho dheeraada maadaama ay yihiin dad qalbiyan isfahmi kara oo dadka kale isaga dhow oo qalbiyadoodu ay yihiin dad isla jaan qaadi kara. qodobka saddexaad ee daraasadani soo qaatay waxay tahay waxay dhaheen laba qof oo kasta oo marka hore walaaltinimo isku bartaa waxay isla wadaagaan inta ay walaaltinimadooda socoto siro aad u muhiima oo khaas ah. sidoo kale qof kasta ka kale waxa uu uga sheekeeyaa oo la wadaagaa arrimaha xasaasiga ah ee ku saabsan noloshiisa dhabta. taasi waxay keentaa laba qof oo kasta oo walaaltinimo isku bartaa marka horeba dadka oo dhan inay isaga dhawaadaan kama dambaysna waxa suurtagal ah inay noqdaan laba qof oo mustaqbal dheer wada qaata. qodobka ku xigaana waxa uu yahay daraasadani tiri inay laba qof oo walaaltinimo dhexdooda ka dhacda oo kastaaba inay isu xiisaan oo isu buhriyoobaan waqtiyada ay kala maqan yihiin ee ay kala dheer yihiin. sidoo kale midba midka kale waxa uu dareemaa inuu si aad ugu xiisayo oo xiisihiisa ayuu dareemaa. sidaa daraadeed qof kastaaba waxa uu jeclaystaa qofka inuu iska ag joogo kama dambaysna laba qof oo kasta oo walaaltinimo ka dhaxaysa maadaama ay isu xiisaan waqtiyada ay kala maqan yihiin waxa ay go'aansadaan inay wada joogaan. qodobka ku xiga ee daraasadani soo qaadatay waxa uu yahay waxa ay dhaheen laba qof oo kasta oo walaaltinimo marka hore isku bartaa waa ay isu xiisaan oo waa ay isu buhriyoobaan waqtiyada ay kala maqan yihiin ee ay kala dheer yihiin. midba midka kale waa uu xiisaa waxa uuna jeclaystaa inuu ag joogo maadaama ay si aad isugu xiisaan oo si aad isugu buhriyoobaan waxa uu go'aansadaa mid kastaaba isagoo aan ka kale u sheegin inay noqdaan laba qof oo dadka kale isaga dhow. taasi waxay keentaa inay labada qof noqdaan laba qof oo mustaqbal dheer wada qaata maadaama ay yihiin laba qof oo si aad isu fahmaya